kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oon kaga hadli doono umuuraha hadda soo cusboonaaday ee ku salaysan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya ay sameeyeen ama heshiiska dhexmaray. Haddaba dad fara badan waxay isweydiinayaan heshiiskan iyo dan ugu jira maxaa hadda ku soo beegay. Waxa jira wadamo kale oo iyagu isku dayay inay dhexdhexaadin ka sameeyaan Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku dhawaad hal sano muran u dhex taagnaa balse ugu dambeyn waxa ku guuleysatay dowladda Turkiga maxaa u dhibiray. Haddaba maxay tahay faa'iidada ku jirta heshiiskan? Dad fara badan oo sidoo kale Soomaaliyeed shaki ay shalay ka qabeen wali qaar baa shaki qaba. Su'aalahaas iyo jawaabahooda iyo waliba faahfaahintaas dheer waxa barnaamijkan marti ugu ah qof aad wada taqaanaan Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo isagu mararka qaar koodan dhaho Sheekh al-Kulliga Soomaaliyeed oo dhan kasta ku wanaagsan hase yeeshee hadda aad u soo daraaseeyay isla markaana aqoon durugsan u leh arrimaha siyaasadda bariga dhexe Afrika iyo qaaradda Yurub iyo Ameerikaba. balse intaan hadalkaba sii badanin marka koobaad Sheekh Cabdiraxmaan soo dhaw. alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah aad baan kugu dhawahay hadlaq gaaran ku siinaya adiga iyo idaacadda iyo telefishinka iyo dadweynaha dhageysanaya dhamaantood si wanaagsan. waxa soo dhamaaday heshiis ka dhacay dalkaas Turkiga oo dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya in mudana markaasi anaha caalamku isku dayay inuu dhexdhexaadiyo. hadda Itoobiya maxay u ogolaatay heshiiska؟ alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah wabacd. horta Itoobiya arrimo badan baa hortaagan. arrinta koobaad waxa weeye xeerka caalamiga ah oo ogolayn in dal la iska farageliyo adiga oona lagu ogolayn dadka dalka xukumeeya inaad wax ka qabsatid. arrinta Itoobiya aad baa loogu diiday. ururka Afrika IGAD-ka jaamacadda carabta dowladaha islaamka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dowladaha waaweyn Mareykanka Yurub dhammaantood waxay arrintaasi way diideen. marka Itoobiya waxa ku hor yimid darbi qaanuun iyo xeer ku salaysan. balse Cabdiraxmaan dibi noo celi waxa dibi noogu celisaa dabcan arrimaha badda Itoobiya taariikhdooda xilligaad isleedahay way bilowdeen iyo sababta keentay. Itoobiya bad weligeed yaalaheed way ku taamaysay waxayna ka ahayd istaraatiijiyad inay hesho marin badeed ay dowladda kala xidhiidho. Itoobiya saa ogtahay waa dowlad weyn waa dowlad 100 milyan dhaaftay waa dowlad loo yaqaan dowlad xidhan oo bilaa landlocked dowladaha aan bad lahayn oo aan waliba asleedahay dowladaha ku meersan oo dhan bad bay leeyihiin. Soomaaliya tahay Djibouti Eritrea Suudaan intoo bad bay leeyihiin marka laga reebo koonfurta Suudaan. markaas Itoobiya waxay isku haysataa dowladii madaxa superkii meesha tan bariga Afrika isku haysataa. waxaana jira qisad taariikhi ah oo ah in Itoobiya ay leedahay badaha ku yaala Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea in iyadu leedahay ay aaminsan tahay taariikhiyan waxayna aaminsan tahay dadkan degan Itoobiya dadka Soomaalida ee degan maxaan ku dhahdaa dhulka Soomaalida inay yihiin dad arila jooga xoolo la jooga oo weliga dowlad yeelan. dowladda quraatay ee geeska Afrika jiraysa inay dowladda Itoobiya waa dhagar ay European ka galeen Itoobiya iyo aaminsan tahay. marka dhagartii bay soo ciideeda waa laga toobadkeen oo la soo celiyo. arrin kale jirta waxa weeyaan markii Faransiisku uu qabsanayay Djibouti Menelik buu heshiis la galay. Menelik wuxuu ku yiri markaad ka kacaysid wadanka Djibouti anaadi soo celi ana le Haile Selassie 73 intii uu dhici ka hor sanad wuxuu booqasho ku tagay Faransiiska wuxuu maqlay dalka Faransiiska inuu ka kacay Djibouti. wuxuu khudbad buu jeediyay uu ku leeyahay waa soo celi doontaa Faransiisku ku hadlaya anaana idin soo celinaysa. marka Itoobiya waxay rumaysan tahay xeebahan inay iyadu leedahay in loo soo celiyana ay muhiim tahay. markii uu madaxweyne Djibouti la galay heshiiska ururka DDP ee badda wuxuu wafdi baa yimiday Meles uu soo diray waxaa lagu yiri dowladda Djibouti maadaama aad la gasheen heshiis wadanka Imaaraadka anaka ka mudan anaku kuwa Afrikaan baan nahay xuduud baan leenahay baddu anaka noo shaqeysaa anakaana asal ahaan lahaan jirnay. marka waxaas oo dhan wuxuu keensanayaa in Itoobiya ay istaraatiijiyad u taala ay tahay. odayga nabada qarinba Abiy Ahmed waxaa jira oday weyn oo dalka Mareykanka ka tag jiray oo la Jimmy Carter wuxuu qabaa khudbad markuu yiri dad 100 milyan
inay bilaabad noqdaan dad 20 malyan inay haystaan badda adduunka oo Afrika ugu dheer maaha wax xaq macquul ah marka waxaas oo dhan baa jirto oo gargaaray markaas marka waxa leedahay waa in hami soo jireena oo muddo ku taameeyeen inay dib u helaan dhulkaas waa hami weyn asxaabeen markii uu soo baxay khilaafka u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya oo ay macnaha diblomaasiyaduna xumaatay meel xun gaadhay wadamo fara badan baa isku dayay inay dhexdhexaadin sameeyaan Uganda kamida Kenya kamida hay in Masar baayada laftigeeda ku jirto isku dayday intaasba way dhicisoobeen waxa uu suurta galiyay Turkigu inuu ku guuleysto arrinkan horta Turkigu waa dawlad weyn dawladaha adduunka waxa loo qaybiyaa saddex waxa loo qaybiyaa awoodaha waaweyn awoodaha gobolka iyo awoodaha yaryar Turkigu waa awoodaha gobolka marka la yiraahdo isaga iyo Iran iyo waxa loo arkay inay yihiin power gobol halka Mareykan iyo Yurub ay yihiin iyo Shiinahana kuwa oo caalami ah yihiin marka wuxuu leeyahay xiriir sokaye Soomaaliya bal waxa loo dhiibay inuu badda baadho gaaskii arinta labaad dawladda Itoobiya wadanka labaad ay la leedahay dhaqaale iyo baayac mushtarka ugu sareeya Shiinaha dabadii waa Turkigu Itoobiya wuxuu gashaday bilyan lacag waa meesha uu xoolihiisa dhigay ee Afrika ugu talagalay marka labadaba wuxuu arkayaa inay yihiin strategical tan muhiim bay u tahay Itoobiya Soomaaliyana muhiim bay u tahay laakiin marka uu kala saarayo dawladda Turkiga waa cajiib waxay Soomaaliya ku tilmaamtaa xaliif istiraatiiji waxay ka dhigan tahay xaliifku gacan saar waxaan leenahay istiraatiiji sax Itoobiyana waxaan leenahay gacan saar dhaqaale marka Soomaalida uga muhiimsan Itoobiya markii loo fiiriyo laakiin marka lacagta Itoobiya ku jirta marka la eegana Itoobiya muhiim bay u tahay in ka badan Soomaaliya wuxuu ka fikirayaa marka Turkigu wuxuu ka fikirayaa labadan isagoo isku haya number 1 number 2 ka fikiraya inuu labadaba ilaaliyo danahooda gudo inuu Itoobiyana u helo bad Soomaaliyana laga tanaasulin maxaan ku dhahdaa in midnimadeedii iyo xooggeegii iyo dawladnimadeedii laga tanaasulin iyo awoodii sare lahayd Soomaaliya laga tanaasulin isla markaasina batroolka Soomaaliya gaaskiigana uu isagu baaro inuu haddana ku guureysto mar labaad inuu xeebta la siin doono Itoobiya inuu isagu dhiso waa hunguri kale waa hunguri saddexaad baa bilaabay marka uu dhisana jidka Itoobiya tagi doona isaga dhisaya digada ka bixi doona ilaa Addis aadi doona isaga dhisi doona wuxuuna yahay maanta dawladda Turkigu waa dawladda labaad ee ugu horeysa dhismaha jidadka marka waxa ka horeeya China imika si wanaagsan number 2 bay noqotay caalamka walidaalika wuxuu arkayaa Turkigu mustaqbalka dhow inuu madaxweyne Erdogan isa sharaxo soo isku sharaxo dastuurka u diidan بس ما شرحي كهرب وإن أو صود شرحاتا وقت لو قلت لك كسر رئيسيو بركة والله قالوا نشرحه إذا شرحه واحد كحناي إنه دقالها تركيا كر وقاضي وكر وقاضي يا إنه أريت سوريا قعنت قلقاي وضد كين عليه سوريا دسميه غير سجى قاضنا يا وقول كلام أريت كلامه وقاضنا يا بس هذا مركز واحد وارك لبضنا واحد أوجليين إنه يهاي أبو نمد لبض أوجليين حاجة كأوجلين إن كينيا أنا أباهين أوغندا أنا أباهين جيبوتي أباهين مثلا وبتقال بيكون جرى إثيوبيا قلبيين إن واحد يذكر سويدين أظن إن بدن سو آخر أقام دركسنا ولا لا إثيوبيا ستة سوالي مي أشيكتي إن أي موقف كي هشيس كي لقى شيء سومالنا نقول بتاي إن مثل تدرب بوشكت ما هي ماشي إثيوبيا مورن وكلامي waxayna ahayd shardiga ku xidhnaa inuu madaxweyne xasan la fadhiistaba sax madaxweyne xasan si aanu la fadhiisto madaxweyne wasaaraha Itoobiya waa inuu ka laamo isagoo ka laamin buu la fadhiistay laakiin ragii dabka u kala qaadayay labadooda waxay u keenayeen inuu noocan ma ku qornaan doono heshiiska inuu ka laamay oo isagoo oran ciidamada laga dul qaadin odayga in la keeni doono halkaan ciidamada laga qaadi doono marka fikradaas bay ahayd arinta aad ka arkaysid heshiiska markaan akhrinay
اتفاقية أما مارتي بوينتي شيء كوبا ياهي waxaa ku qoran wixii uu doonayay xasabay ku qoran tahay waxaanu ixtiraameynaa waxaan ixtiraameynaa madaxbanaanida iyo midnimada iyo nabadgelyada labada dhulba ee Itoobiya iyo Soomaaliya halkii Soomaaliya lagu oran lahaa Soomaaliya waa maxaa yeelay madaxweyne xasan wuxuu ku hadlay markii Itoobiya ay faragelinta keentay kelmad adag buu ku hadlay wuxuu yiri haduu dhul maqan yahay anagu naga maqan yahay dhul aan leenahay baa Itoobiya haysataa naga maqan waan sheeganaynaa tiiba iminka laga leeyahay adeer jooji adiguna oo dhulka ha sheeganin adiguna jooji faragelinta kale inta noocaas marka heshiiskani jiidan ugu jirtaa horta marka koobaad wax weeyaan mid halisa jirta taariikhtii wax weeyaan halis weyn weeyaan sidoo uu qoray heshiisku hadhow marka la macnaynayo si kasta loo macnaysan karaa si fiican Itoobiya waxay samaysay oo doontaa waa la ogolay maxaa yeelay madaxweyne Erdogan markuu hadlayay wuxuu la hadlay madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha Itoobiya lama hadal madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku yiri waxa muhiim ah inaad ogolaatid inay bad helaan ya baddaas oo ah bad baayac mushtara oo nabada soo had garatay ma okay su'aal baa meesha taala bad baayac mushtara oo nabada mar dhaweeyay Djibouti baa ogolaatay oo bor dikada ku taala tajoora ayuu qaata si wanaagsan uu diiday taa mar rabno waxaan rabnaa bad ciidankeenu marka Itoobiya gudaheega hoose odayaasha u qora qawaaniinta u qora ee xeerasha u soo sameeya ee wasaaradda dibadda iyo gaashaandhigga fadhiyay may ogolaadeen ay ka tanaasuleen mise waxa weeyaan marxalada aan lagu dhaafayaa arintaas waa muhiim anigana markaan akhriyay waxa iga soo baxay sadarkana waa la akhriyaa sadarka hoostiisana waa la akhriyaa sadarka hoostiisa waxa iga soo baxay in Itoobiya wax ku laabayeen marka haddaan hadalka si kale u dhigno waxay samaysteen ciidamo bad ciidamada samaysay marka ciidamadaas baddu markii la siiyo dekadaasi iyagu maraakiibtooda ku soo xiranayaan asaas weeyaan dad macnaheedu waxay tahay markaasi waxa la iskugu dari doonaa sadalka sidaan u dhignay bad iyo ciidamada nabadgelyadooda sugaya marka hadii la tahay bad aan nabadgelyo leh macnaheedu bad aan ciidamadooda sugayaan meel laga wada aniga waxa laga yaabaa inuu Turkigu ka dhaadhiciyay markii hore waxay lahayd 20 kiiloomitir oo dhulka Soomaalida ku yaala si wanaagsan oo ilaa Itoobiya galaya inaan yeelano weeyaan dhul 20 kiiloomitir wanaagsan tiiba laga kharji dhul horta ma helayaan laakiin badda ciidan inay mid kale muhiimka waxyaan badda tagayaan su'aal kale ma badda Indiya tagayaan mise badda Cas ma tagayaan badda Hindiya iyo Soomaalidu leeyihiin waan geeyna inta badan laakiin Itoobiya ma tagaysa baddaas laba sabab daladeed badda Indian Ocean waxba ma tarayso way ka fogtahay xuduudda Itoobiya way ka fogaanaysaa jid dheer bay ka qaadanaysaa dhinaca kale badda ay rabto badda Cas meesha dagaalku uu ka socdo adduunkan waa halkee waa badda Cas weeyaan marka badda Cas bay rabtaa Itoobiya si ay nabadda u ilaashato waxa adduunka uga imanaya okay waa laga yaabaa in la yiraahdo okay dhul lagu siinayo laakiin waxa lagu siin doonaa badda marka waxay aniga ila tahay iminka in la siiyo fasax هذا لا صعود إن فسح لسيه عبد الرحمن عرو إنه يتوب يشيس لقوا السجوا أو مركزي فسح كل قليا إنه حسسوا قلاضي أبو سقوا كحنا رنيو مصبح فسح مهزن لكن عبد الرحمن عرو فسح أبو هايستا وكسو قاتي حسن شيخ أردوغان مركز بدي وبحين كرايمك بدأ سيلعة كذا بدو دونه ماشي على سكوا وافقه لأن هدي ما دام أونن دول قابسنين وجيبوتي حدودي صوماليا وكل جوجوينين وحويا بدأ ودقيا سوق ودقيا يدنا وحويا وحال سكوا وافقي وحد حيا لقط حبضا سؤال شكله إثيوبيا محيك التنافسية ده مركز Itoobiya waxay ka tanaasushay inay u weydaarato dawladda Soomaaliya adduunka ictiraafsan yahay dadka ka hooseeya in la ictiraafsanayn in Puntland heshiis la gali karo kaligeed Somaliland la gali karo kaligeed ama Jubaland la gali karo taasi ka tanaasushay laakiin waxaana la yiri guddi baa la saaraya 4 bilood kadib
sheegi doona habka iyo systemka loo shaqayn doono. Marka Ethiopia sidoo bilowgiiba oran jiray Abiy Ahmed anigu ma maray doono maaratay gobolada ma aadi doono koraa ka iman doona korkii lagu ceshay. maxay tahay danta ugu jirta Soomaaliya? horta Soomaaliya waxay ka badbaaday in Ethiopia dagaal ay galaan, taas waa laga badbaadiyay. arinta labaad Soomaaliya danta ugu jirta wax weeyaan in la ilaaliyay sarreyntii dawladda Soomaaliya dhulkeega ay ku haysatay, in la ilaaliyay in adduunku xeerku isku ogolaana la dhowray. arintaasina martay mid iloomin arrimaha loo ogolaaday odayga Trump soo socda. odayga Trumpna intuu iman adduunka waxyaalo badan baa la dhameynaya, waxyaalo badan Gaza la dhameynaya, Suuriya la dhameynaya, Soomaaliya la dhameynaya, Ethiopia waxaas oo dhan waa la gabagabeynaya. oo sababtu tahay waxa loo gabagabeynaya odaygani hadduu hadlo hadalkiisa u sameeyaa ma beedan oo hadla istaraatiijiyad kale wata waxbu sameeyaa kan wuxuu leeyahay la joojiyo haddii kala saasaayaalaya oo yaalaya. marka inuu waxa la rabaa inuu la yimaado feelal cusub oo dunida ka bilaamay oo la dhaqmi karo inay yimaadaan baa la rabaa. marka taasina waa kamid. marka Soomaaliya waxa ugu jira faa'iido in la ictiraafay inuu dawladda Soomaaliya dhexe ay dhulkooda ka taliso. Ethiopia danteeda maxay tahay? okay danta Ethiopia badii bay gaadhay waxayna keentay اتفاقية heshiiska Pontio aan macnaha marka la macneeyo danaha Ethiopia lagu macneyn karo in badan yaa la keenay. bal inoo sii la balbal waxaana taasi keentay madaxweyne Erdogan inuu way dhahdaba baasha jilci xasanow ogolow in Ethiopia bad ay hesho waana muhiim buu Ethiopia bad hesho. okay badii la isku haystay Ethiopia ma helayso way helaysaa. marka faa'iidada ugu weyn waa badii. faa'iidada labaad wax weeyaan ciidankeegii badana ay keenaysaa wixii iyaga bigala soo degaysaa. Ethiopia waxay tiraahdaa had iyo jeer wuxuu dhahdaa Abiy Ahmed Djibouti markaan wax ka soo dejino waxay nagu taagan tahay lacag sare, waxaan rabnaa meel lacag hoose aan ku helo. marka tiina way helaysaa dhaqaalaha iyo sicir hoose oo ka Djibouti ka hooseeya iyo helaysaa. waxayna helaysaa inay saladeeda maaratay ukunteeda inay hal salada ku ridin oo Djibouti qura gacanta ugu hayn oo halkan kaleetana ay jirto meel kale wax ka gadato Kenya meesha u fadhida. marka waxay balaarinaysaa soo dejinteeda insha Allah taala. walbahaar intee leeg bay shacabka Soomaaliyeed ka qaadi karaan labadan arrimood kala ah marka Ethiopia loo galo badda haddii ciidamada badeeda ay samaysatay bad aan lahayn hadda u diyaar garoobo ay badaha Soomaaliya soo kulaalaan si lamidana lagu sii dhaafo ciidamadii AMISOM ama ATMIS oo la rabay 25 bishanina ku jirno in laga saaro. طبعا dii la heshiiyay waa lagu sii dhaafi karaa. marka haddaan si kale u dhigo Ethiopia Soomaaliya ku haysata ciidamo bad iyo bariya walbahaar intee leeg baa laga dhaxlay. horta ma jirto waa laga badbaaday in Ethiopia ka badbaaday in loo diido in ciidamadu si fadhiyaan way fadhiyaan wani ku dhaay bad iyo bari bay haystaan isku helayaan. horta annaga saddex shay waa inay naga dhaadhacsanaato. Ethiopia waa dawlad أنا واحد هذا ما ندويته وأن تحليلني كلمة ويريد مدحويني حسن شيخ وأن فيلسوف وحولي صومالي هشيسة دونيدنا لهشيسة. أنا واحد الدونيدو لله شيء واقعي معها رياليتي معها رب معها الدون هشيسة الدون كمان بجربها دونيدا وحال لجودة جي سيدو اللي هيسي الدنيا دو بارودو يعني الدنيا دو بارودو بالغ بالله ماي حوق نيكي إيطاليا ولا قبصانيا قرآن كنوا يحول إيطال دياريا وأعدوا لهم مسا من قوة بس كي علنسين عدوكين هذا بلا إيطال تاي ولا صادرنا يا مركا دتكو هذه جير دولدو وصدح دولد ولالتين عربت واحد عدان دولدها عربت واحد عدين وشقيق وحوي قرآن كل هذا الشيء مركا جيبوتي وصوماليا وكلا وشقيق وصل هذا الشيء أوكي دولدو قارن وصاحب كينيا وكلا يا صوماليا بلام اليوم أنا فردو بيع مشترو شقيسته علماء له ودادله أصحاب عنه إثيوبيا أصحاب من هي مسمنين سؤال شباب مهم ويا مدحوين حسن شيخ هروح ويري إثيوبيا وحي كعدو سنتها شباب حالنا وحي إثيوبيا أنت هو غلال كنا هيبقى كبضان أنت عدو كنا اسبدل كلانجستيغا سياسيغا هي أساس waxaa la saaxiib siyaasadu bal saaxiib joogta mana la cadu joogta waxay leedahay dan joogta okay laakiin adduunyada waxaa jira wadano istiraatiijig ahaan cadu joogta
falastiin iyo israa'iil waxay isku yihiin cadow joogtaa ilaa ay kala xoroobayaan. annaka Ethiopia ma nihin saaxiib joogtaa, haddaan rabna cadow joogtaa samayn mayno, laakiin waxaan leenahay dad waxaa jira isugu jiraan nahay maxaa dhahdaa dhufayska isugu jirnaa. Ethiopia istaraatiijiyan waxay aaminsantahay inaad ka mid tahay. igu su'aali istaraatiijiyan waxay aaminsantahay inaad ka mid tahay Soomaaliya in Ethiopia ka mid tahay. Ethiopia Soomaaliya ka mid tahay. qofka Ethiopiaanka ee runta haddaad wareysatid wuxuu leeyahay Soomaalidu Ethiopia ka mid tahay. mana aaminsana qofka Soomaaligii hadduu Ethiopian yahay inuu Ethiopian yahay. ma aaminsano. Soomaali qushaasha maxaa laga yeelay odaygii ra'iisul wasaaraha ka ahaan jiray Soomaaliya Umar Arte Qaalib baa ka soo dhacay Addis Ababa. su'aal baa la weydiiyay, waxaa la kulmay maaragtay idaacadda telefishinka Ethiopia. waxaa dhimudana madaxweyne maxaa afka taqaana afka Amxaarka Soomaali qushaasha ma ka aqaana hadalkay dhahdaan. Soomaalidu waa gidaafad yani waa uskag. Soomaali qushaasha ayaan ka aqaana wuxuu sheegaya mugta message buu dhiibaya. arrintaasi waa muhiim jiddan weeyaan. dowladaha caynkaas waa dowlad cadow ku ah saaxiibna maaha saana ma Ethiopia waa inaan u aragno haddaan xitaa saaxiibada ka deyno inaan wadadan dhufayska ku jirno. marka Ethiopia waxay ka fikiraysaa ayaamaha ka mid ah inay Soomaaliya weligeed awood yeelan. waxyaalada u diidan Soomaaliya awood yeelatana Ethiopia ka mid ah. soo garatay ma laakiin annaka maanta dhibaatada weyn ay nahaystay wax weeyaan waxay naga lunsan waxa loo yaqaan priority-ga. maxaa inoo priority? dhismaha ciidanku priority bay noo tahay mise noo maaha? ahmiyadii amnigu ma inoo yahay priority mise priority noo maaha? marka iminka dagaalka ka dhaco kale Jubbaland ciidankeenii hooyaacaya ay galeen Kenya ay galeen oo ciidankii gorgor aan u bixin magac weyn aan siinay gorgor aan u bixinay hooyaacaya halka ay galaan waxay keensanaysaa inaan maaragtay aan ciidanku inoo nahay priority inoo hayd inaan dhisano. marka aniga waxay la tahay dowladda Ethiopia waxay rabtaa waxa weeyaan waa wax cad, laakiin annagu waxaan rabno Ethiopia ka rabno ma caddo. mushkiladda in haysta waa intaas. Ethiopia wuxuu wacd yahay hadday qarinaysana wacd yahay, hadday miiska soo dhigaysana wacd yahay. 20% bay miiska soo kordhigay 80 hoosta ku haynaysan. annaga se 100% miiskan keenna laakiin wax cad ma haynee. waxa caadifan ku hadlaynaa iyo qalbigan ka hadlaynaa waan dagaalamayna haddana waan walaal baan nahay ma quraatay يا بقول كيف سديتنا سبدلنا صاحب إلا عدو أنت ما كوش قينا لغة ما هي لغة كلام ما كوش قينا ما جرت. Sheekh Cabdiraxmaan dadku inkastoo in dayan haddana waxay aad u rabaan oo dadka siyaasadda ablaableeya ama dadka siyaasadda qaada dhigood adu ka mid tahay ka rabaan bal tafsiir muhiima inay ka bixiyaan heshiiskan sidiisaba wareerkiisa batay labadii maalmood la soo dhaaf. aniga tafsiirka ugu weyn aan saaray wax weeyaan waa heshiis aan caddayn madmadow badan baa ku jira. waa heshiis sita qumburada qarxaya waa talabaad weeyaan. waa heshiis arinta saddexaad dadka qaanuunka aadka u yaqaana ee Ethiopiaanku ay ku dadaali doonaan inay sida danahooga u macneeyaan. marka waa furano markasta la wareejin karo waa madaad baa dhada waa sida shaaka waa la fidin karaa waa la soo ururin karaa ma qeexno kuma qorno luqad daqiiqa oo adag oo qaanuuni kuma qorno luqad diblomaasi ku qoraya. luqadda diblomaasiga waa rakiik sidoo loo macneyn karaa. waa waxyaalaha lagu dilna marka Israa'iil iyo Carabtu ay qoranayaan Israa'iil iyo Carabtu ku dishoobaan. marka Ethiopiaanku waa xariifin dhakaasan aad buu yaqaanaan. annakana waa dawlad soo burburtaan nahay wasaaraddeena arrimaha dibadda way naga soo burburtay imika dib loo soo dhisaya. marka lagama yaabo inaan la mustawanahay marka la qorayo xeerasha iyo waxaas oo dhan la mustawanayn. bal kow iyo laba waxaad ka sheegtaa cabsida ku muuqata ee waxaan ay isku gadi karaan barika maal. aniga cabsida ay muuqata horta dhanka Soomaalida waxa weeyaan maqnaashaha eliidka. barnaamijka noocan oo kale taa elite baa loo dhiibaa waxa loo dhiibaa qaanuuniyiin jaamacadaha waaweyn dhiga soo ruuga soo cuna waafajiya xeerasha kadib siyaasadda waafajiya keena. arrintaasi ilama aynay dhacday. marka dhanka Soomaalida cabsida weyn ay haysto wax weeyaan siyaasi aan wadan elitkiisi. Ethiopiana cabsida iga haysa wax weeyaan waa arrin laga soo shaqeeyo la soo ruugay oo macnaha ay leedahay la garanayo si loo safasiri doono la fahmayo yaa la keenay.
marka cabsidu waa maxay markaan miisaanka saaro miisaanka Itoobiya كافي كلا ديري وكافي kala dheeri mushkiladu waa taas wadanka Turkiguna maanta wuxuu taagan yahay in uu gool dhaliyo inuu gacanta ku dhigo dhaqaalaha bariga Afrika waana madaxweynaha maartay Erdogan waa zaciim muslima oo wanaagsan laakiin waa pragmatic waana daniisa yaqaan dantii garad wey marka wax kasta dantiisu ka raacaya boqolkiiba 9 waxaad ka dhawaysay mar dhaweyto in heshiiskani uu yahay mid aan ka soo bixin fikirka Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya laakiin uu yahay mid khubarada jaagoynta siyaasadda Itoobiya qaabilsan oo soo dhiibeen halista ka iman karta taadna taaba horta Itoobiya waxaa jira 4 meelood oo siyaasadda dibadda xaquuqda oo kala kaniisada ortodokska waa lambar weeyaan dadku ma yaqaanaan taas lambar 2 wasaaradda arrimaha dibadda camaaliqada waxaa jira duqohii ka shaqeyn jiray 50kii 70kii 60kii ilaa uu dhimanayo wasaaradda arrimaha dibadda lagama kaxeeyo hadduu xitaa gaboobo la taliyo noqdaa khabiir buu noqdaa meel buu fadhiyaa dawlad kasta way ka faa'iideysaa min Haile Selassie ilaa Mengistu ilaa Meles ilaa imika qolada saddexaad waxa weeyaan wasaaradda gaashaandhigga meeshaas waxaa fadhiya khubaro waaweyn baa fadhiya waxaa jira qolo la yiraahdo dadka Itoobiya gargaara oo hagee joogaan meeshana deganahay joogaan Mareykan bay fadhiyaan waa lobby weeyaan lobbiga Itoobiya ee Mareykanka fadhiya oo khubaro oo danta Itoobiya ka taliya ayaa jira tikreebiyiin oo afartaas baa ya arrimaha Itoobiya jangoysa qaar waxay ku daraan mukhaabaraadka sirdoonka ku daraan laakiin sirdoonku waa isbedelaan meelaha wasaaradda gaashaandhigu istiraatiijiyahan isma bedesho wasaaradda arrimaha dibadduna isma bedesho kaniisaduna isma bedesho iyo kaana ka taliya arrimaha dibadda iyo arrimaha waaweyn ee Itoobiya marka meelaha dadka loo yara khubarada baa qora aniga marbaan Addis Ababa joogay heshiis baa dhacayay Djibouti iyo dhexmarayay iyo Itoobiya dhalinyaro markaan dhalinyaraan ahaa dhowr iyo 30 jir baan ahaa dhalinyaro anigu aan ugu weyn oo kale Addis Ababa joogay way u yaadeen markii fadhiyo hotelka Sheraton waxay galeen heshiis dhalinyaradaasi da'dayda iyo wax iga yar bay hayeen Itoobiyaankii markay yimaadeen heshiiska ay galeen ka ugu yarbaa 50 jir ah marka meesha la soo fadhiistay taariikhda sita ku Itoobiyaankii kuwana jaad bay ka soo kaceen way soo mirqaameen way soo barjay way yimaadeen way soo fadhiisteen wax walba degdeg baa loo dhameeyay markii dambe la laamay maslaxadda Itoobiya marka dadkani waa dad istiraatiiji ka soo shaqeynaya in hadaba bal waxaad inoo iftiimisaa adigoo aqoontaada iyo way aragnimadaada isticmaalaya waxyaabaha hadda Soomaalidu ay ka jiifto ee heshiiskan mugdiga ku jiro bari ka iman kara wallahi Soomaalidu wax badan bay ka jiiftaa oo baahan tahay qaybta heshiiskan eegno oo waliba qaybta heshiiskan raacsan boqolkiiba boqol waa sax weeyaan horta heshiiskan waxaan eegayay anuu isha ku hayay dadka madaxweynaha la socday marka wasiirka arrimaha dibadda laga reebo dad dhalinyaro saaxiiba oo isku socda koox arinta badana koox kama talanayso Soomaali weyn baa ka talanaysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan مثلا halkan Mareykankan aan deganahay professor ajira jaamacadda dhiga oo professor Samatar uu ka mid yahay iyo kuwa kale oo badan baba mar hore uu qaatay Kenya wadada la tagay xasan Sheekh uu qaatay laakiin mararka qaarkood dadkii loo dhiibi lahaa malafaadkaas ee qori lahaa ee ka talin lahaa waa dadka waaweyn ee khubarada marka in la isticmaali waayo khubarada Soomaalida amba loo isticmaali waayo dadka qaarkood waa mucaarad oo loo sheegi waayo markuu Muusabix galay heshiiska Cabdiraxmaan wuxuu dhaw heshiiska ma ogeyn baba inuu ogaadana waxay Soomaa imika waxa laga yaabaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Shariifka iyo ragga mucaaradkii inay warbahayn bari markay yimaadiina dalka tali dhaxdaana cid la imanayaan waxay ogeyn bay imanayaan laakiin hadii la tuso adduunyada waxaas annaka uu inooma gaara waxa ka shaqeeya dadka loo yaqaan awaatifta siyaasiga ku shaqeeyo markii Israa'iil iyo Masar heshiinayeen masaaridu waxay la tagtay malaf faaruqa
fayl waxba ku jirin Israa'iil waxa la matay fayl buuxa markii la weydiiyay waxa la dhigay Israa'iil way soo tashatay saadaanna lama soo tashay wasiirkiisa arrimaha dibadda uu sacsilay markuu soo laabay arrimaha dibadda ninkii xukumayay aqalka madaxtooyada Usaama al-Baaz baa dhalaa wuxuu waxba warmahay ninka Butros Qaari ee jamciyadda qurumaha ka noqday maaragtay xogayaha guud ka noqday wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda wuxuu warmaanay marka anagu carabta iyo muslimiinta iyo afrikaanka mid baan saan ku shaqeyn laakiin Itoobiya ka duwanta afrikaanka Itoobiya dawlad muasasaad iyo institution bay leedahay waan gartay marka institutionada aan ku shaqeynayn oo qof aan ku shaqeynaya saaxiib iyo walaal iyo marxalad adagna waan soconaa oo dadku ay aaminsan yihiin war dibadiina waxaan nahay daciifiin gudihiina de shalay waxa la hadlayaa darad ma garanaya run iyo been waxay tahay ma garanaya aqalkii hooyooyinka la iibinaya ma maqashaan warkaas aniga waan nahay odaygii lahaa aqalkan odaygii lahaa guriga lafti odaygii lahaan jiray صح siyaad baray ilaahu naxariistay guriga quraxdo muqdisho ku lahaa weeyaan dawladdu siiyay aniga markaa waraaqad baan qoray shalay waxa la hadii guriga la bixinayo odayga loo cisho kidaayo kale waan gartay in wadad wax saabanahay nolosheeniba gabagabadii barnaamijka ku soconaa oo waliba talooyin fara badan aan ka rabo dadka Soomaaliyeed ay kaga fadhiyaan adigoo marka aqoontaada iyo cilmiga ay isticmaalay laakiin hal su'aal aan ka hormariyay Somaliland watii heshiiska la gashay arrinkaas hadda wuxuu noqday ka kac oo Itoobiya sida dad intuusana si toos ah u sheegin sida dad bay u tiray de waxaan ixtiraamayaa madax bannaanida Soomaaliyeed ma faragashanay Itoobiya ma laga yaabaa marka inay mar kale badaha ay dalbanayso ay ku soo dartaan dhankaas waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland horta filin in Somaliland badii ay ka doorisay ka laamatay inay Somaliland aaminsantahay badii laga laamay filitaana waa loo salaxay سيفاني فان والله صلحي سيدي لو صلحت والله صلحي Itoobiya imika markay Cabdiraxmaan Ciro la sheekaysan dooto waxay sidataa waraaqad ay ka soo qaadatay Xasan Sheekh oo ah inuu la sheekaysan karo Itoobiya Somaliland isagoo ka socda Cabdiraxmaan maarata Xasan Sheekh marka Xasan Sheekh ma oran doono maxaad u faragelisay ma oran doono waa soo ogolaatay wax ku soo ogolaatay meesha la dhado Ankara ee Turkiga marka anagu taa ka dhaqaaqayna iyo isaga laga leeyahay yaan heshiiska galaynaa Cabdiraxmaan Ciro iyo dawladda Somaliland waxa laga leeyahay heshiiska labadeena galaynaa waxa aniga kula waa meelaha uu lagu ciyaaray kamid tahay si fiican ma fahantaa adiga marka taasi miyir ka dhawaynaysa hal qabsigii Somaliland dadka degan lahaayeen xasano anigu ma noo diidanta inaan bixin adiga diyaar waa inaad bixiso هاوي كنا بينا سلنا سووا عبسيه أنا إنا بحياها قف كنا بحماها أنا أنيكي مارتي ملكيلي وأنا دولدي دحية صومالي أنا كأبايا أنا ملحق ملكيلي وأنا كأبوها بسنا يكونوا حيلي ملكيلي متي أنا كمان كهوس محني تقال كي عادي كان سعودي ويان مركب أضو من كان هذا أحمد أبي وحوس وقعت فصح في عن سئو الموسى نسعي مش هو كداف موسى وانين موسى waxa u dhaxay farqi weyn dhiga dhado Cabdiraxmaan Muuse nin waxa soo taagan oo ciidana shalay markii la wareejinayay maxaan ku dhahdaa dawladda wareejintii wuxuu yiri ninkii kornelkii uu socday ninkii kornelkii aadka uu tagay nin diblomaasi ibiday oo jilicsan oo bal nabad ha keenaysan marka Muuse wuxuu ka duwan yahay maarta Ciro waa deganaan waa diblomaasi marka waa laga yaabaa inuu deganaanta iyo diblomaasiyadaba ay ka mid tahay uu sii sheegay maartay Abi Ahmed wardusha waxa ka soo dhamayso dusha wax ka soo dhamayso waxa aniga imo gabagabadii barnaamijka Itoobiya heshiis baa la galay madaxweynaha federaalka heshiiskaas goobjoogka raalina ka ahaa laakiin heshiiskiisa sheegtay wuxuu noqday mid mugdi ku jiro waxaad kaloo ka dhawaajisay in Itoobiya siyaasadeeda jaangoonteeda aysan ahayn ra'iisul wasaaraha tahay afar tiir oo ballaaran oo 400 sano soo socota hataa wixii la sii uduroosi karo sii uduroosa Soomaaliduna ay jiifto shacabka Soomaaliyeed ee ku taawanaya ee walbahaarsan ee meelay u dhaqaaqan kara garan kuwa aqoon darro haysiyo kuwa walbahaar hayo bal
maxaad uga digaysaa maxaase u iftiiminaysaa ani horta waxay la tahay horta shacbigeena Soomaaliga shucuubta geeska Afrika oo dhan uu ka duwan yahay wuxuu ka duwan yahay dhowr arrimood oo ayna lahayn shucuubta geeska Afrika aniga waan dhexmar geeska Afrika si wanaagsan shacbigeena Soomaaliga waa shacbi dynamic shacbi ma aha hurda ma aha shacbi soo jeeda weeyaan dynamic yaqaan sida loo guuleysto sida lacag loo keeno sida wax loo barto dhaqdhaqaaq fiican leh adisaabo ka shaqeysta koonfurta Suudaan ka shaqeysta Suudaan ka shaqeysta wali meelaha ugu daran dagaalka socod ka shaqeysta marka waa shacbi saasa oo nool weeyaan labo arinta labaad oo shacbigeenu leeyahay waxa weeyaan waa shacbi jecel inuu guuleysto guul buu jecel yahay guul daraduna shacbigan Soomaaliga wuxuu ku fiican yahay kale waa shacbi isku gurmada iyagu isku xun yihiin laakiin marka nasiiba taabad oo midoobaan wadanka iyo meesha la haysto waa loo midoobaa markii badda maartay Kenya la isku haystay Soomaaliland laga cabaaday Djibouti laga cabaaday oo Soomaalida Itoobiya cabaadaysay ma kasal qaylay wada saas soo gurmada dadka noocaas maxaa ka maqan waxa ka maqan hogaamiye hogaankuna ma aha walaalkayo kursiga oo madaxtinimada la dul fadhiisto ma aha hogaanimada hogaanku ma aha inaad qofka madaxweynaha ahay dadkiina waxba uma sheegayo waxana hogaanku saamaha hogaanku saddex arrimood buu leeyahay marka hogaamiye laga hadlay muxuu leeyahay saddex arrimood buu leeyahay oo kala ah koow waa taxriiku naas dadka inuu dhaqaajin karo ilaa iyo maanta Soomaaliya 1990 ilaa maanta hogaan dadka dhaqaajin kara ma jiro ya maxaa ugu wacan waxa ugu wacan hogaanku wuxuu rabaa kursi inuu fadhiisto bas laba hogaanku waa inuu yeesho taasiir dadku inuu raadiyo waa inuu dadka markuu wax sheego dadku meesha wax ka sheegay waa inay tagaan waa inuu aqligu ogana taabsado qalbigu ogana taabsado taasina ma jirto hogaanku arin saddexaad buu leeyahay wuxuu leeyahay objective intuu sameeyo iyo dadka ku dhaxa ka hagaasan tagayna inta halka tagin dad ma nihin ka Soomaaliya maanta waxa ka maqan wax kale ma aha aniga nin Suudaaniya oo buugaan qoro wuxuu yiri Suudaantu waa shacbi hogaamiyaal leh laakiin bila dada wuxuu yiri Soomaaliduna waa dad nool oo bila hogaamiya maxaa rabnaa anaka markaanka anu yaan la hadlaa marka hadlayo dadka adiga kula daadaa si waxay ka hayaan kuwaasan ku dhahaa war odayaashu way fashilmeen waxay ku fashilmeen maamulkii dalka iyo hogaankii dalka isku diyaariya wadanka Suuriya maanta Bashaar u baxsaday Soomaaliya naam iyo eriga taqaana ninka ugu weyn ee Goolaani waa 42 jir 82 dhashay iyo wixii ka hooseeyay ka yiraahdo odayaashu waxay noo nasta xagga daba noo fadhiya marka wadanka xoreyno noo yimaada marka waxaan rabnaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed min daraf ila daraf fadhida inay isfahmaan ay dhahdaan waa markayagii markii noo dhabaaday talada laga rabo aniga taasan bixin lahaa mid labaad ee bixin lahaa waxa weeyaan dadkan dibadda joogay Soomaaliyeed ee wax baranaya waa inay objective ugu noqoto inay Soomaaliya badbaadiyaan Soomaaliya aan waxaan ka cabsanayaa laba arrimood inay nagu dhacdo inay nagu dhacdo waxa jiri jiray dal Soomaali la yiraahdo hada koor ambasa inay nagu dhacdo sida aan ahaano in saan u socono in aan soconoba marka dambe ha maanta Kenya ay wada tageen dadka aqliga ah dhan guriga ka dhis daara ka dhis galabtaan la hadlaynaa saaxiibnahay oo reer Canada wuxuu waan guuray Kenya anu guuray waxa ay maxaa Soomaaliya u guuri weeyday Soomaaliya tahay adoo Puntland baahday maxaa u guuri weeyday maxaa jiro walaakaas xaga waxa yaalay marka wixii gari lahaa wadanka ageeynay wadanka la sheey marka aynu ku soo noqonay talada ku saabsan walbahaarkan heshiiska maxaad ku talanay والله horta heshiiskan aniga waxa ila tahay waa heshiiskii waxa isleeyahay heshiiskan haduu helo rag Soomaaliya uu badi karaa rag haduu helo laakiin haduu waayana qad nooqadii si dhaxso والله منا شكله كسي جيرنا ان شاء الله تعالى
aad iyo aad buu u mahadsan yahay sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ah siyaasi macalin ustaad aabaha jacaylka oon u bixiyey sheekh alkuli oo inoo iftiiminayay heshiis dhowaan dhex maray dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo in muddo ah soo dagaalamaya ku saabsanayd arrimaha heshiiska badda hase yeeshee heshiiskan ayaa qodobadiisa sidoo sheekh cabdiraxmaan sheegay qaarkood yihiin kuwa aan si wanaagsan loo qeexin ama loo iftiimin oo walbahaar ku abuuray shacabka Soomaaliyeed tan inta ku kulmi doono barnaamij lamida aniga sheekh cabdiraxmaan waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo